بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل توعنا ونكسن ووردك دقاء kanaalkii hormuus oo Iran albaabada u laabtay madaxweynaha dalka Ruushka Putin oo heegan galiyay dhammaan ciidanka ee dalka Ruushka kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismihii burburay ee magaalooyinka Tel Aviv iyo Haifa oo laga magay dalka Imaaraadka lacag balaayiin dollar ah qodobada iyo qodobo kale ayaan isku dul taaganahay ka codsanaya barnaamijka dug soo gaaro in si share garasiid hadii salaad ku joogtaan oo soo tuko hadii kale nabi ku salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waayay guud ahaan waxa albaabada loo laabay kanaalkii hormuus waxay wararku sheegayaan 6 markab oo kamid ah maraakiibta shidaalka caalamka oo ka noqday kanaalka hormuus iyo shidaalkii caalamka oo boqolkiiba 25 kor u kacay Iran waxay hore u sheegtay in aanay marnaba ka tanaasuleynin madax banaanida dalkooda iyo weerarka gardarrada ah ee Mareykanka iyo Israa'iil ku soo qaadeen waxay Iran hore u sheegtay hadii gardarrada Israa'iil uu ku garab istaaga Mareykanku inuu ka shalaayi doono dagaalkana uu noqon doono dagaal caalamka oo dhan ku fida gaar ahaan bariga dhexe saameyn weyn ku yeesha sidii ay ballan qaaday Iran waxay ka dhabaysay ballankii ahaa inay weerari doonto saldhigyada waaweyn ee Mareykanku ku leeyahay bariga dhexe inay xiri doonto kanaalka hormuus balse hadda waxa ay ku dhaqaaqday sidii ay u xiri lahayd kanaalkii hormuus sida la sheegayo maraakiib tira beel ah ayaa ku xaniban kanaalka hormuus iyagoo oo doonaya inay kanaalka dhex maraan deedna caalamka kale ay u gudbaan wadada oo xiran awgeed fooda lama gelin karo laguma dhaco albaabkaasi waa xidhmay horeyna Iran waxay u ballan qaaday inay albaabada u laabayso hormuus waxa warku inta ku daraya safaaradda Mareykanka ee ku taala dalka Qatar oo warbixin soo saartay ayaa waxay sheegaysaa muwaadiniinta Mareykanka inaanay guryahooda ka soo bixin tan iyo amar dambe baa la yiri sidoo kale safaaradaha Kuwait Sacuudiga Imaaraadka ayaa guud ahaan iyaguna waraaqaha u qaybinaya muwaadiniinta Mareykanka waxa digniin laga soo saaraya safaaradaha ku yaala bariga dhexe madaxweynaha Mareykanka waa Donald Trump ayaa u hanjabay una goodiyay wadamada shidaalka sheegayna in aanay shidaalka sinti ku dari karin halka hadda boqolkiiba 25 uu kor u kacay shidaalkii caalamku madaxweynaha Ruushka oo heegan galiyay dhammaan ciidankiisa cirka waxa la sheegayaa wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada sirdoonka iyo madaxweynaha Putin oo la kulmay Abbas Araji kulankii kadib waxay wararku sheegayaan madaxweynaha dalka Ruushka waa Putin inuu hawl galiyay una khudbadeeyay guud ahaan ciidanka dalka Ruushka kuwaas oo ku wargeliyay in dagaalka Iran iyo Israa'iil u dhaxeeyay dawladaha shisheeye oo cadow ah ay faraha la soo galeen sida darteedna ay laga maarmaan tahay in Ruushku dagaalka uu qayb ka noqdo waxa Putin si cad u sheegay in uu garab taagan yahay dalka Iran siina doono difaaca cirka ee Ruushka hubka ciidanka wax kasto oo ay Iran uga baahan tahay inuu la garab taagan yahay maadaama ay abaal hore u gashay oo markii ay Ukraine iyo Ruushku ay waxa weeye fooda isdareen Iran si cad isu garab taagtay dalka Ruushka Putin ayaa ka dhabaynaya ballanqaadkiisii dhammaan ciidankiisii heegan galiyay dalka Ruushka oo si cad ayaa loo oran karaa ugu soo biiray dagaalka maamulka Netanyahu ayaa fariin u diray dalka Iran sheegayna in ay dagaalka joojinayaan balse jawaabta Iran ayaa waxay noqotay wali lama joogo xilligii nabadda oo macnaheedu yahay dagaalka waa sii wadaynaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen waxaad ka heshana annaga waxba han naga siin anagu dagaal ayaanu u taaganahay ayay dheer Iran waxaad ogeydeen Netanyahu oo soo istaagay meel fagaara ah mar uu shir jaraa'id qabanayay yirina dagaalkii wuu joogsaday anagu imkaanu lahayn waanu gaadhnay hubka ayaanu caalamka waxa weeye nuclearka ayaanu caalamka ka badbaadinaynay hadarna Iran waxba isuma qabno dagaalkiina waa joojinaynaa fariintaas dadban ee Netanyahu saxaafadeedka markii uu qabanayay uu ku hadaaqayay tii oo qoraal ah ilaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa war dawlo warqad buu ku yaalaa warkii Netanyahu shalay uu ku hadaaqayay kii oo qoraal ah oo tafatiran oo sasabaad ku jirto oo salaax ku jiro oo waxa weeye isdhibrid ku jirto oo isdhul dhigid ku jirto ayaa Iran loo diray balse Iran waxay kaga soo jawaabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran oo waliba uu hogaaminayay ninka mayalka adag ee wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran
Abbas Arachi ayaa u sheegay xilligan maanta la jooga in aanay ahayn xilligii nabadda aan wali la gaarin tan iyo inta la kala cad goosanaya buu yiri si cad ayay Iran u sheegtay dagaalkan inaanay joojinayn Iran waxay inta ku dartay dagaalkani inuu soconayo muddo 2 sano haddaba xaaladda Israa'iil maamulka Netanyahu iyo shacabkii reer Israa'iil xaalkoodii xagee buu marayaa waxa dhamaan hoos u dhacay dhaqaalihii maamulka Netanyahu waxa qaxaya shacabkii Netanyahu oo u qaxay Masar Jordan qaar baa la sheegayaa inay Lubnaan galeen waxa kale oo iyana la joojiyay dhamaan diyaaradihii qaadi lahaa shacabkaas gabi ahaantoodba sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa isaguna ruwaayad qurux badan jiraya wuxuuna sheegay in Iran iyo Mareykanka wax colaad aanay ka dhaxayn kaliya ay doonayeen hubka nuclearka inay beesha ka saaraan balse waxa ceeb iyo fadeexad weyn noqotay caalamkuna si toos ah u ogaaday sidii aan hore idinku sheegay Iran dal wax qarsada maaha dad wax qarsada maaha dhibaato iyo dheef wax kasta oo soo gaadha si cad ayay u sheegeen waxa halkan idinka muuqda waa xerada Fardow ee ku taala dalka Iran waa xeradii Trump lahaa waanu duqeynay way u dhamaatay hubkaas wuu baabay meeshaanu ka saarnay Netanyahu iyo kooxdiisuna hadda ay leeyihiin UMkii aanu lahayn iyo ujeedadii aanu lahayn waanu gaadhnay haddana dagaalka waa joojinayna waa sawirkani waa sawirkii hore ee xerada Fardow markii la duqeeyay sawirkii laga soo qaaday waa kan wax allaale iyo wax meesha gaaray iyo wax burbur ah iyo wax khasaare ah iyo wax nuclearkii waxa weeye Iran gaaray siday Iran hore u sheegtay caalamkuna uu maanta arkay haba yaraatay ma jirto dadka siyaasadda falanqeeya khuburada ableysa ee rogrogta siyaasadda caalamka iyo dadyooga fashilmayna Trump waxay ku sheegeen inuu yahay nin fashilmay weerarkii ayaa fashilmay heelkii waxa weeye Israa'iil u soo hiilinayay ayaa fashilmay beelayin waa sida hadalka u dhigeen waxa fashilmay weerarkii Trump ku qaaday Iran wax allaale iyo wax gaaray xarumihii iyo hubkii nuclearka ahaa ee la bacriminayay Iran haba yaraatay ma jirto khubarada caalamka ee sayniska iyo arrimaha nuclearka markii ay daba galeen oo ay eegeen oo rogrogeen oo isdul taageen xataa wax shucaac ah iyo wax gaas ah iyo wax qarax ah iyo wax qiiq ah oo waxa weeye halka ka soo baxay ilaa iyo hadda ma jirto waxay leeyihiin qaraxii meesha ka dhacay hadii uu gaaray nuclearka waxa la arki lahaa shucaaca gaaska qiiqa iyo wixii lagu yaqaanay meel nuclear lagu bacriminayay oo la qarxiyay wixii ka soo bixi jiray ilaa iyo haddana meel ay ku qoran tahay iyo cid haysa ma jirto Iranna waxay sheegtay nuclearkii ay bacriminaysay haba yaraatee wax gaaray inaanay jirin waxa halka marka ku fashilmay baa la leeyahay oo waxa weeye araxda kaga jabay Trump oo weerar doqoniina ku qaaday Iran waxa halka ku fashilmay oo araxda kaga jabay hiilkii Mareykanka waxa warku inta ku sii daraya Imaaraadkii oo malaayiin dollar lagu xukumay maamulka Netanyahu ayaa Imaaraadka wuxuu u sheegay inay u baahan yihiin dhammaan khasaarihii gaaray dhismayaasha kaabayaashii dhaqaalaha iyo xarumihii dawladda iyo ganacsigii guud ahaan wixii soo gaaray in ay Imaaraadku magayaan waxa la sheegayaa Imaaraadku inuu bixiyay balaayiin dollar waxa warkaas ka soo baxay warbaahin Israa'iil waxaase arrinka isaguna beeniyay nin la yiraahdo Anwar Gashgash la taliyaha madaxweynaha dalka Imaaraadka oo isaga laftirkiisa looga shakisan yahay inuu yahay sirdoonka Mossad ayaa isaguna war dhaweed wuxuu sheegay warka ka soo baxay Israa'iil inuu yahay wax kama jiraan Imaaraadkuna lacag aanay siin Netanyahu khasaaraha iyo dhibaatada gaadhayna aanay Imaaraadku u magin wax allaaliya wax ka jiraan ma jiraan laakiin wararku waxay sheegayaan Anwar Gashgash oo la taliyaha madaxweynaha Imaaraadka in uu yahay ama amiirka Imaaraadka inuu yahay nin u shaqeeya Mossad bal idinku waxaad qiimeysaan oo eegtaan wax kasta oo soo gaaray Israa'iil iyo maamulka Netanyahu maanta waxa laga qaadayaa oo laga magayaa Imaaraadka waliba keydka waxa ku jira Sacuudiga Bahrain Kuwait ragaasa la daldalanaya lo badan oo naasuhu dareen ayaa caanaha si fiican looga lisaya halka Iran ay taagan tahay ninkii aniga iga dheeriyahay iga boodo
xaaladu farahay ka sii baxaysaa kanaalka hormus wuu xiran yahay shidaalkii cirku isku shareeray Trump waa fashilmay imaaraadka waa la baaranayaa balaadeegay ruushkii wuxuu u diyaar garoobay inuu dagaalka galo si cad baan u garab taaganahay buu yiri xaalku faruhu ka sii baxaya ninba taagtii had talaabsada weeye waa barnaamijkeena iftiiminta walaalka Cabdi Boodhari leh tan iyo tadbiku kulmi doona waxa ka tagaya warsan iyo nabaadiino assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh